madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Somaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Seylici iyo wafdi uu hogaaminayo ay ka mid yihiin wasiirka xanaanada xoolaha iyo madaxa shirkadda maamusha maxjarada Al-Jaabir ee Sacuudi Imaaraat ayaa ka soo degay madaarka Berbera waxaana ka soo ambabaxeen dhinaca caasimadda Somaliland ee Hargeysa. madaxweyne ku-xigeenku ugu horeyn waxa uu xadhiga ka jaray maxjarka Al-Jaabir maalgeliyay waxaana uu soo dhaweeyay maalgelintaasi. madaxa shirkadda maxjaradaasi maamusha Xasan Khalaf Xasani ayaa isna xukuumadda uga mahadnaqay iskaashiga iyo dhiirigelinta mashaariicda ay hirgeliyeen ka xanaanada xoolaha. Dr. Cabdi Daahir ayaa isaguna soo dhaweeyay maxjarkaasi. noo tahay in maanta furno maxjarkii labaad ee shirkaddan ay maalgelisay oo say noo muuqato maxjar runtii aad u ballaaran. waxa weeyaan waa gacmooda jir bay u gooyaan wax wada qabsiga waxay muujinaysaa beesha caalamka iyo dawladda Somaliland. waxaan diyaar u nahay mar kasta inaan soo dhaweyno cid kasta oo wax gashanaysa dalkan iyo dadkani faa'iido u soo kordhinaysa isaguna ka faa'iideysanaya. قامة نائب الرئيس بافتتاح محجرنا الجديد، المحجر التابع للشركة السعودية الإماراتية الدولية للمحاجر والتي ترعى رعاية كاملة حكومة رأس الخيمة. نحن فرحين بهذا الافتتاح، نتمنى أن يكون هذا من لبنات الخير والبركة لهذا البلد لأرض الصوماليلاند. عرفوا إلا دم $1 لدمه لعقتي حولها الإقعاد سنة كعصب إنه ندبوا إجنو قيمينه إن تعلق في بديه سبدا ورت محجر كان ومحجر أو قرن كليه وحما مامل كذا ليهين شركة إمارات Somaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo iyo madaxweyne ku-xigeenka oo ay shahaado siiyeen iyo wasiirka xanaanada xoolaha isaguna sidoo kale shahaado siiyeen. sidoo kalena madaxweyne ku-xigeenku waxa uu xadhiga ka jaray mashaariic kala duwan oo laga hirgeliyay madaarka caalamiga ah ee wasaaradda duulistu ka hirgelisay sida jid laami ah oo 350 mitir dhan iyo dib u habeyn lagu sameeyay albaabada madaarka iyo geedka hore oo dhismayaal cusub laga hirgeliyay. waxaana ka warbixiyay wasiirka duulista iyo hawada jamhuuriyadda Somaliland raggaas oo runtii saaxil mashaariicdani waa wixii ay xukuumaddani u ballan qaaday bulshada Somaliland gaar ahaan gobolkan kuwaasoo horumarinaya kaabayaasha dhaqaale. madaarkan waa madaar istiraatiiji ah iminka waa tii aynu soo furray kadinkii koowaad iyo kaa dambe. mashaariicdaasi waa 11 mashruuc oo madaarka laga fuliyey sanadkii ay xukuumaddani talada haysay. sidoo kalena madaxweyne ku-xigeenku waxa uu kormeer ku tagay dekedda caalamiga ah ee Berbera oo uu kormeeray dhismayaal cusub oo ka socda iyo qaybaha cusub ee dekedda lagu kordhinayo. sidoo kalena waxa halkaasi warbixin ka siiyay maarayaha dekedda Berbera Axmed Yuusuf Diri. madaxweyne ku-xigeenku waxa uu kormeer ku tagay garoonka kubadda cagta Berbera ay dawladda hoose ka hirgelinayso oo ah mid aad u ballaaran oo uu Mayr Cabdalle ka warbixiyay. inuu noqdo ciyaaraha Afrika xitaa lagu qabto barnaamijka maaha Soomaaliland oo qura ciyaaraha sanadka geeska Afrika ku talagalay waxa ku soo naqshada VIP dressing rooms kale uu kala bedelanayay iyo fans kale dadku saana soo arag inuu kuraasta aan bilaabayna labada dhinac ciyaarahaas wuxuu unique kale ku yahay. madaxweyne ku-xigeenka iyo waftigiisu waxay kormeer ku mareen amaha kaydka shidaalka ee Berbera iyo sidoo kalena shirkadda Sacuudi Imaaraat waxa ay ugu deeqday gobolka saaxil maalgelin dhan $70,000 fiista magaalada Berbera waxaana ugu dambeyntii u ambabaxeen dhinaca caasimadda Somaliland ee Hargeysa. Cabdikariim Saciid Saalax, Home Cable TV, Berbera.